nabigu calayhi salaatu wasalaam dacwada wuxuu u faafinayey si qarsoodi ah muddo 3 sano ah. 3 sano kadib ayaa Allah subxaanahu wa tacaala nabiga wuxuu amray in uu dacwada uu bannaanka u soo saaro oo public uu ka dhigo oo dadka qaraabadiisa ah oo ugu dhow weliba uu ka bilaabo. maalin maalmaha ka mid ah ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimid buurta Safa ee ku taala Maka. buurtaas ayaa waxaa fuuli jiray oo ka khudbayn jiray qof walba oo wada war aad u weyn si magaaladoo dhan ay isugu soo baxdo ay u dhegaysato. nabigu calayhi salaatu wasalaam buurtii markuu fuulay ayuu reer Maka u yeeray qabiil iyo jifo iyo qof ayuu ugu yeeray. kulligood meeshii markay isugu yimaadeen ayuu wuxuu ku yiri, haddii aan maanta idinku iraahdo buurtan waxaa ka dambeeya ciidan doonaya inuu ku soo duulo Maka, ma iga aamini lahaydeen? markaasay waxay yiraahdeen, haa, waan kaa aamini lahayn, sababtoo ah waxaa tahay as-saadiqul amiin, weligayo kuguma aanan baran been, run ayaan kugu naqaanaa. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, haddaba anigu waxaan ahay mid idinkaga digaya cadaab aad u daran oo idinku soo socda haddii aad ka soo waantoobi weydaan cibaadada asnaamtan aad caabudaysaan oo aad caabudi weydaan Allah subxaanahu wa tacaala. nabiga calayhi salaatu wasalaam khudbadiisii markii uu dhammeeyey ayaa adeerkiis Abulahab oo ahaa madaxdii Quraysheed baa intuu istaagay buu wuxuu yidhi, tabban laka yaa Muxamed, hoog ha kuu sugnaada Muxamedow, ma waxaasaad noogu yeertay oo wakhtigayagii nooga lumisa? markaasuu ka soo tegey oo ka soo dhaqaajiyey dadkiina ka soo kala dareeriyey. Allah subxaanahu wa tacaala Abulahab wuxuu ku soo dejiyey suuratul Masad isagoo ugu bishaaraynaya Abulahab iyo xaaskiisuba in cadaab ay geli doonaan oo iyaga hoog uu u sugnaaday. nabigu calayhi salaatu wasalaam halkaas ayuu wuxuu ka bilaabay Quraysh in uu si public ah oo jahri ah uu u gaarsiiyo diinta, oo wadooyinka uu istaago oo dadka diinta uu sheego, oo xaramka uu istaago, oo kacbada uu aado, oo dadka xujayda markay isku yimaadaan intuu dadka dhex istaago uu diinta ka faafiyo. nimankii madaxda ahaa ee Quraysheed waxay u adkaysan waayeen in Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam diintiisii uu dadka ku dhex faafiyo oo uu ka soo leexiyo cibaadada asnaamta oo uu soo leexiyo cibaadada Allah subxaanahu wa tacaala. waxay kaga dacwoodeen oo u tageen adeerkiis Abu Talib mar walba oo ay u tagaan waa uu ka sasabi jiray oo si wanaagsan ayuu intuu ula hadlo ayuu kala diri jiray Quraysh. ilaa maalinkii dambe iyagoo xanaaqsan intay u yimaadeen ayay waxay ku yiraahdeen Abu Talib inaysan u adkaysan karin Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu faafinayo, haddii saa uu ku sii socdana in ay dili doonaan. Abu Talib nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u yeeray, kadibna wuxuu ka dalbaday in uu joojiyo faafinta diinta islaamka. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay oo uu ku yiri, ilaahay baan ku dhaartay adeerow, haddii qorraxda intay soo qaadaan ay gacantayda midig ay saaraan, dayaxna ay soo qaadaan oo gacantayda bidix ay saaraan, diintan faafinteeda inaanan joojin doonin, ama waan ku guulaysanayaa ama waan dhimanayaa. isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam emotional ah oo isdareensiinaya in adeerkiis uu u dhiibi doono Quraysh. Abu Talib nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka jeclaa carruurtiisuu ka jeclaa. markii uu arkay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam sida ay uga go'an tahay diintan inuu faafiyo, inuu ku dhimanayo markii uu arkay, ayuu wuxuu ku yiri, wiilkaygiiyo orod oo wixii aad samaynaysid samee, qof ku dhibaatayn kara oo wax ku soo gaarsiin kara ma jiro, Qurayshna anaa kaa hortaagan oo kaa celinaya.